kulan wacan daawada waa mar kale iyo xogta daahsoon muuqaalkana waxaan kaga hadli doonaa qaabka loo dilay madaxweynihii hore ee dalka Haiti Jovenel Moise xaaskiisa oo ka sheekaysay sida dilku u dhacay maxay Haiti ka qabatay Haiti oo markan dalbanaysa ciidamo shisheeye muuqaalkani ayaan kusoo koobi doonaa haddii ay tahay markii ugu horeysay oo muuqaalkii kusoo gaaro magacaygu waa Yaxye Maxamuud Maxamed go'aanka bixistii joogista adiga ayaa leh balse daawada waxaan ka codsan lahaa in aad igu soo biirto aad subscribe saarto channelkayga inuu ku bilaabnay xaaska madaxweynihii hore ee Haiti waxay ka sheekaysay qaabkii loo dilay saygeeda haweeneyda dhaawac ah ee xaaska madaxweynihii Haiti ahayd ayaa ka sheekaysay qaabka saygeeda rasaas ugu fureen rag hubeysan oo soo weeraray kadib markii ay ugu soo dhaceen guriga ay degnaayeen Martin Moise waxay sheegtay in weerarka uu ku dhacay si degdeg ah saygeeda Jovenelna uu awoodi waayay in xitaa hal eray uu yiraahdo madaxweyne Moise waxaa la dilay 7 July iyadoo dilkiisa lagu eedeeyay 28 calooshood shaqaystayaal ajnabi ah Mrs Moise ayaa sidoo kale ku dhaawacantay weerarka isla markaana waxaa loo duuliyay Miami si loogu daaweeyo sabtidii waxay fariin cod ah soo dhigtay boggeeda Twitterka iyadoo ku dhaaranaysa inay sii wadi doonto shaqadii uu waday tiradada ayaa xaqiijiyay in codkaas uu yahay mid ka marwada madaxweynaha muddo elbirqsiya iyo calooshoodu shaqaystayaal gurigayga soo galeen waxayna ninkayga ku rideen saas ayay ku tiri Mrs Moise codka ay soo duubtay iyadoo ka sheekaynaysa xilliga kuwa weerarka soo qaaday ay dileen ninkeeda ficilkani ma ahan magac sababtoo ah waa inaad noqotaa dambiilaan xad lahayn markaad dilayso madaxweyne sida Jovenel Moise adiga xitaa fursad u siinin inuu hal eray ku dhaho ayay sii raacisay waxay soo sheegtay in ninkeeda loo bartilmaameedsaday sababo siyaasadeed awgeed gaar ahaan iyadoo xustay afti loo qaado isbeddelka dastuurka ay siin lahayd madaxweynaha awood dheeri ah dadka aan la magacaabin ayay tiri waxaan doonayaa inay dilaan riyada madaxweynaha waan ooyayaa waa run laakiin ma ogolaan karno in waddanka uu ka lumo waddadii uu hayay raacisay ma ogolaan karno in dhiigga madaxweyne Jovenel Moise ninkayga madaxweynaheena aan aad ku jecleen oo isnana jeclaa uu daato waxaan micno lahayn awadeed Mr Moise oo 53 sano jir ah wuxuu ahaa madaxweynaha dalka Haiti oo ah waddanka ugu saboolsan Ameerika ilaa 2017 waqtigii uu xafiiska hayay waxa uu ahaa mid aad u xun waxaana loo jeediyay eedeymo musuqmaasuq waxaana jiray barnaamijyo baasan oo ka dhacay caasimadda iyo magaalooyin kale horaantii sanadka doorashooyinka baarlamaanka waxay idin la qabto Oktoobar 2019 laakiin khilaafaad ayaa dib u dhigay taasoo micnaheedu tahay in Mr Moise uu ku xukumay dalkaas dekreeto waxaan qorsheenayaa in bishii September afti loo qaado isbeddel loo soo jeediyo in lagu sameeyo dastuurka dalkaas balse ma aysan dhicin qaarijinta madaxweynaha waxay sababtay in la garan waayo qofka maamulaya Haiti dastuurka dalkaas wuxuu sheegayaa in qaadiga maxkamadda sare uu qabanayo xilka balse dhawaan ayuu u dhintay xanuunka COVID-19 arrintaas kadib isbeddel la sameeyay waxaa lagu sheegay in ra'iisul wasaaraha uu hogaaminayo muddadii 4 sanadood ee Moise xilka hayay waxa uu soo magacaabay 6 ra'iisul wasaare isniintii maalin ka hor intaan la dilin ayuu magacaabay ra'iisul wasaarihii toddobaad oo ah Earle Henry Mr Henry weli looma dhaarin xilka balse wuxuu ku adkaystay inuu isaga yahay mas'uulka dalka hogaaminaya Mr Joseph oo ah ra'iisul wasaaraha ku-meel gaarka waxa uu warbaahintu u sheegay inuu la yaabay hadalka ka soo yeeray Mr Henry qaramada midoobay waxay sheegtay in Mr Joseph uu xilka sii hayo ilaa doorasho laga qabanayo dhamaadka sanadkan wuxuu sheegay in uusan u tartami doonin xilka madaxweynaha haddii uusan qabanayn xilka madaxweynenimo halkan uma joogno inaan muddada ku sii sugnaado waxaan u baahanahay inaan doorasho qabanno malii qorshe siyaasadeed ayuu yiri qaarijiyaal aad u hubeysan ayaa weeraray guriga madaxweynaha oo ku yaal buuraha ka sareeya magaalada Port-au-Prince subaxii Arbacada muuqaal la baahiyay waxaa ka muuqda rag aad u hubeysan oo dhar madow wada xiran oo iska dhigaya laanta Mareykanka ee la dagaalanka daroogada waa howlgalka DEA laanta la dagaalanka daroogada ee Mareykanka qof kasta dhulka ha seexdo ayay dhahayeen xilligaas xafiiska madaxweynaha iyo qolkiisa jiifka ayay si degdeg ah u galeen qaarkood saddexda cunug oo ay wada dhaleen labada xaas ee hore Jormela iyo Jovenel Chiar iyo Joverliana ayaa la sheegay in meel amni ah lagu hayay sida saraakiisha laga soo xigtay xitaa ka hor intaan la dilin madaxweyne Moise xaaladda Haiti ayaa lagu tilmaamay inay mid aan degnayn waxaana jiray isu soo baxyo lagu dalbanayo inuu iscasilo doorashadii baarlamaanka oo ahayd
in la qabto bishii Oktoobar 2019 ayaa dib u dhacday kadib khilaafyo. Taas micnaheedu wuxuu yahay in Mr. Miozo xulka iyo isagoo waqtigiisu u dhamaaday. Haiti waxay ciidamo weydiisatay qaramada midoobay Mareykanka si ay u ilaaliyaan kaabayaasha muhiimka maadaama dalku la daala dhacayo dhibaatada Arbacadii dilka loogu geystay madaxweyne Jovenel Moïse. Aqalka cad ayaa sheegay inuusan jirin qorshe xilligan la joogo loogu dirayo ciidamo military, ha yeeshee Washington ayaa gacan ka geysan doonta baaritaanka dilka madaxweynaha. Dhanka kale, golaha guurtida ee Haiti ayaa Joseph Lambert oo afhayeenka aqalka sare u magacaabay inuu noqdo madaxweyne ku-meel gaar ah, tallaabadaas oo sii xoojinaysay xiisadda siyaasadeed ee ka aloosan Haiti. Dalabka Haiti ayaa kusoo beegmaya iyadoo koox ku takhasustay qaarijintii shirqoolka dilka u badnaa askar howlgab ka noqotay ciidamada Colombia la sheegay inay ka dambeysay dilka madaxweynaha Haiti Jovenel Moïse. Kooxda weerarka fulisay waxay ka koobnaayeen 26 u dhalatay Colombia iyo 2 Mareykan asalkooduna yahay Haiti sida laga soo xigtay taliyaha booliska dalkaas Leon Charles oo la hadlay saxaafadda. 8 ka mid ah kooxda laga sheegsan yahay ayaa weli baxsad ah, 17 kale oo ay ka mid yihiin 2 Mareykanka ayaa la qabtay oo la xiray. Golaha amniga ee qaramada midoobay waxay ku khasbanaan karaan inuu ansixiyo qorshe kasta oo ciidamo caalami ah loogu dirayo Haiti, kuwaas oo hoos imaanaya qaramada midoobay. Xaaladda degdega ayaa weli ka jirta dalka oo dhan manacada sida cidda rasmiga u maamusha xukuumadda waddankaas. Kuwa sida ugu weyn loogu sheegsan yahay waxaa lagu dilay dagaal ayaga iyo boolis ku dhex maray magaalada caasimadda waa Haiti ee Port-au-Prince. Aroortii hore ee subaxii Arbacada, koox dabli ayaa gudaha u galay guriga madaxweynaha waxaana ay toogteen isaga iyo xaaskiisa. Moïse waxaa la helay isagoo dhabarka u jiifa oo 12 xabadoodna ay ku dhaceen, isla markaana goobta ayuu ku dhintay sida maamulka dalkaas ay sheegeen. Xaaskiisa ayaa si xun u dhaawacantay waxaana loogu qaaday gobolka Florida si loo daaweeyo. Halkaas waxaa la sheegayaa in hadda xaaladeedu wanaagsan yahay. weli ma cadda cidda qorsheysay weerarka iyo ujeedkii ka dambeeyay. Ra'iisul wasaarihii ku-meel gaarka Haiti Claude Joseph wuxuu BBC-da u sheegay inay suuragal tahay in madaxweynihii 53 sano jirka ahaa loo bartilmaameedsado arrimo la xiriira la dagaalankiisa kooxaha qaska ka wada dalka. Khamiistii booliska waxaa qaar ka mid ah dadka looga shaksan yahay usoo bandhigeen warbaahinta. Waxaa kaloo lasoo bandhigay hubkii lasoo qabtay, baasaboorada dalalka Colombia iyo waxyaabo kale. Ajaanibta waxay dalkeen u yimaadeen si ay u dilaan madaxweynaheena, ayuu yidhi Charles taliyaha. waan sii xoojinayaa baaritaankeena iyo farsamada raadinta ilaa aan soo qabano 8 kale oo caloosho shaqaystayaal ayuu hadalkiisa ku sii daray. Taliyaha booliska Charles ayaa ku baaqay in xaaladda la dejiyo, isagoo sheegay in shacabka aysan sharciga ku qaadan gacantooda. Hagaag daawadayaal, warbixintiina waa naga intaas oo aan kaga hadlaynay dilka madaxweynihii Haiti. Nabadgelyo.